بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كان أن إديسو قدبنا ولا الليال وحكو سابسن يهي سببها لو هي إرساقة وناكسن أما قفك إلى هي إرساقة وحقو واسعن كرو يا أسباب تارنتها كو سابسن أيان إديسو قدبنا جزاكم الله خير. رزق ولا الليال ومقع لي هي وحوال با أو إنسان كنو ليهي وحانا سوهس قلي رزقك الدنيا يرزقك آخره إلهي وحو أبو رينا إني رزقي هلان والله ومرمان سيد إلهي ويريه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها حتى أدونك وحو عنوية حرامتا مقع رزقك أي سوهس قليا وأي قالد والله إرساقها سبب حرامنا إرساقه إني كسو قشال لغيابا وحكالو لغيابا إرساقه حلال إني عنا قاركود والله إرساقه دادال يجهد إلا إمادين دراديس لكن كو إلهي كعب سنة إلهي وإرساقه ميلا يسكفرين أيوك إرساقه رزقه قدر من نقضه متكو إمادا وحيابا حرام أما حن qofka taqiga ilaahay ka cabsanaya waxa uu baahan yahay irsaaqada looma diidayo lagamana xaraam yeelin asalku waa u banaaya laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in loo diido arrimaha adduunye ee dheeraadka ah isagoo loo naxayo ixsaana loo samaynayo waayo irsaaqada haddii qofka loo waasiciyo ay u ballaarato waxaa laga yaabaa inay dhibtaba qofkeeda oo ruuxa dhibaato u soo jiido marka qofba in baa loogu jaangooyaa waana inta ku munaasabka ah shaki kuma jira walaalayaal irsaaqada adduunkan iyo ku dadaalidda helitaankeeda inay tahay qof kastoo muslima wuxuu maanta ku fakarayo shakina kuma jiro qofka caaqilka ah ee muslimka ah inuu qaadayo waddooyinka sharciga ah ee xalaasha lagu helo waxaasoo dhanna waxaa kasii sarreeya addoonku inuu samro aakhiro naciimadeena uu soo xasuusto daarta aakhiro oo dhammaansho aan lahayn nimcadeedu dhibaato iyo daalna aan lahayn sidaa darteed ducooyinka rasuulka ilaahi waxaa ka mid ah allaahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira nolol dhaba ma jirto oo nolosha aakhira ahayn halka kan baan ugu soo gudbinaya walaalahayga halka nagala socda dhowr arrimood oo qofka irsaaqada uu ku heli karo insha allahu tacaala qodobka ugu horreeya waxa weeye waa alla kacabsiga alla kacabsigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha fura irsaaqada sida rabbigeenu yidhiba waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka cabsada waddo uu wax wanaagsan ka helo ayaa loo furaa wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib dhibaatada soo wajahda qofka ilaahay ka cabsada meel uu uga baxsadaa ilaahay siiya irsaaqada ilaahay usoo kaxeeya qofka ilaahay ka cabsanaya dhinac uusan ka filay lakacabsigu waa muhiim marka lakacabsiguna waxa weeye wuxuu ilaahay ku amray intaad awoodid inaad kala imaatid xumaantana iska daysad haddaad ku dhacdeen ilaahay uga toobadkeentid qodobka kalena waxa weeye qalbigaada oo nadiifisid oo cudurrada qalbiga ka nadiifisid ilaahay soo ka warramaya maalinta qiyaamaha ayaa wuxuu leeyahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qofka qalbigiisa uu saliimka yahay ee caafimaadka uu qabo waa qofka adduunyada kusoo nadiifiyey intuu ku noolaa qalbiga saliimkana waa qalbiga ilaahay si tooso xaqiiqa ugu xihan qodobka kale waxa weeye ee irsaaqada kuu furi karaa istikfaartu waa shay aad u muhiima waqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil issamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara ilaahay dembi dhaaf weydiistay rabbi waa dembi dhaafaaya samadaa roobka ilaahayna kaga soo diraya maalkaa laydin siyaadinaya carruurta sidoo kale beero iyo webiyaal iyo barwaaqaa laydin siinayaa qodobka kale waxa weeye waa toobadda qofka hadduu dembaabo bini-aadan baa nahaye dembi waa ka dhacaya ruuxee inuu isla markiiba isgarto oo uusan shaydaanku sii dhumin shaydaan ka dhumiyeen inuu ka adkaado ayaa la doonaya toobadda mooyaane wax kale loogama adkaada shaydaan istikfaarta mooyaane wax kale loogama adkaada shaydaan toobadduna waa arrin muhiima waayo qalbigaaday nadiifinaysaa jacaylka rabbina waa kuu soo jiidaysaa tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada fura inaad ilaahay tala saaratid altawakulu cala allah tawakulkuna waxa weeye ilaahay agtiisa waxaa yaala inaad ku kalsoonaatid dadka agtooda waxa yaalan aad ka quusatid oo rabbiga aad ku kalsoonaatid taasina waa qayb ka mid a waxyaalaha irsaaqada fura marka tawakulkaada xaqiiji waayo iimaankaada xoogoobaya oo awood yeelanaya qof go-aan u saaxiib ah weliba go-aan wanaagsan ayaadna noqonaysaa waxyaalaha irsaaqada fura waxaa ka mid a walaalayaal qaraabadoo la xiriiriyo irsaaqada lagu furaa qaraabadaada xiriiri kuwa kuu dhow iyo kuwa kaa fogba ilaahay dartiina u xiriiri dhibaatooyin kala duwan ayaa ilaahay kaaga badbaadinayaa xiriirinta aad xiriirinaysa qaraabadaada xiriirisid sabab waxay u noqonaysaa masaa'ib badan inuu ilaahay kaa badbaadiyo taabicigii la odhan jiray saciid ibnu musayib raxmatullaahi caleyh ayaa waxaa lagu yidhi waxaa dhintay ibraahim ibnu moxamed ibnu talxa caalimkaas ayaa dhintay ayaa lagu yidhi markaase wuxuu ku yidhi sideebuu u dhintay waxay ku dhaheen gurigiisii ayaa ku soo dumay yacni gurigiisi ayaa soo dumay isagoo guriga ku dhex jira maya ayuu yidhi waayo ilaahay waa diiday inuu isagoo kale saas u dilo gurigii dumay baa la qufay ninka caalimka ahaa ee ibraahim ibnu moxamed ibnu talxa ayaa laga soo saaray gurigii dumay waxayna heleen isagoo nool oo meelna waxba iska gaarin
xitaa daqar yar ma soo gaarin. saciid ibnu musayib waxaa lagu yidhi hadalkii see ku tiri, hadalkaadii baa ruumoobay oo ninkii ma dhimane maxaa sidaa ku tiri? wuxuu yidhi waxaan ku idhi ninkaas wuxuu ahaa mid qaraabadiisa xiriiriya. qaraabo xiriiriyuhuna ilaahay wuxuu ka ilaaliyaa si xun inuu u dhinto. qaraabadaada markaad xiriirinaysid insha allahu tacaala si xun inaad u dhimatid ayaa ilaahay kaa ilaalinaya. waa qofkii qaraabadiisa xiriirinayay ayaa ilaahay sidaa ugu gargaaraya. ka warramo walaalayaal qof waalidkiis ixsaan u samaynaya oo xiriirinaya, soo kama dheef badna qofkaas, waa ka dheef badan yahay. marka qaraabo xiriirintu waa qayb ka mid ah waxyaalaha irsaaqada fura. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha irsaaqada fura ilaahay dartii inaad wax u bixisid. 10 shilin haddaad haysatid 5 shilin bixi insha allahu tacaala way kuu siyaadaysaa 5taa kuu hartay. ilaahay dartiis inaad wax u bixisid, ilaahay meeluu raalli ka yahay inaad wax ku bixisid waa waxyaalaha irsaaqada fura. wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuh, waxaad bixisaan ilaahay baa bedelkeeda idin siinaya, wa huwa khayru raasiqiin. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kuugu furi karo qalbigaada inaad ka buuxisid cabsida ilaahay, bimacnaa cibaado inaad badisid, si dhaba inaad ilaahay u caabudid oo run ah oo xaq ah. waxa kalena qalbigaada a ka saartid rabbiga weynidiisana aad qadarisid, waa qayb ka mid a waxyaalaha irsaaqada lagu furo. ha noqon qof jirkiisa ilaahay xaqiisa ku xiray laakiin qalbigiisa xagga midig ama bidix u leexiyey. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kuugu furi karo xajka iyo cumrada la israacsiiyo. rasuulkeenna waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xajka iyo cumrada isdaba dhiga, faqrigay qofka ka ilaaliyaan iyo dembiyada. xajka iyo cumrada aad soo celcelisid waa qayb ka mid a waxyaalaha irsaaqada lagu helo, waa furayaasha irsaaqada. waxyaalaha irsaaqada lagu furo waxaa ka mid a walaalayaal barakadana kuu soo jiidaya irsaaqada dhexdeeda, macaasidana kaa fogeynaya, xumaanta inaad ishaada ka ilaalisid. wuxuuse ilaahay kuu fasixin waa inaada fiirin. insha allahu tacala noloshaada waxay noqonaysaa nolol degan oo waasic ah oo raalli a ka tahay, ciriirina dareemi maysid. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kuugu furi karo bisinka ilaahay inaad xustid xaaladahaada dhammaan. markaad soconaysid, markaad fariisanaysid bismillaah bismillaah, markaad wax cunaysid, markaad wax cabaysid, markaad seexanaysid, markaad toosaysid, xaaladahaada dhammaan bismillaah bismillaah bisinka u qabo, bisinka ha ilmaami. wuxuu ka mid yahay waxyaalaha barakada soo jiida irsaaqadana fura. shay kasta bisinka u qabo insha allah. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay ku furo xuska ilaahay, dikriga ilaahay oo aada u fawaa'id badan, asagana waa mid ka mid ah waxyaalaha irsaaqada fura. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada fura inaad ilaahay u mahad celisid tabaaraka wa tacaala, oo ilaahay ku shukrisid oo ku xamdidid. alxamdu lilah, nimcooyinku ku siiyey ma koobi kartide laakiin ka mahad celi. alxamdu lilah iyo inaa ilaahay u mahad celisid yaan lagaa waayin, sababtoo ah waxaad helaysaa nimcadaasna inay kuusii jirto, midda aad raadinaysid kalena inay ku imaato insha allah. waxaa kaloo irsaaqada waxyaalaha lagu furo ka mid a inaad shaqaysatid oo asbaabtii la imaatid oo waddo xalaala aad u martid shaqada, wax xalaalana aad ka shaqaysatid. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada lagu furo aroortii inaad u jarmaadid raadinta irsaaqada oo aada seexan insha allah. oogga hore iyo aroorta hore waa waqtiyada insha allahu tacaala ilaahay kuugu furayo irsaaqada. waxaa kaloo ka mid a irsaaqada dhowrsanaanta iyo qanaacada iyo sidaa wax u raadinaysid inaad qurxisid, waa qayb ka mid a waxyaalaha irsaaqada soo jiida. waxaa ka mid a irsaaqada waxyaalaha soo jiida in ilaahay dii wuxuula ku siiyey aada daadaadin oo aada ku kibrin, si wanaagsan u maamulo. cibaaduraxmaan ilaahay markuu ka warramaya wuxuu yidhi waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna daalika qawaama. bakhiilna ha noqon mid xoolaa iska daadaadiyo aan ku xisaabtaminba tiradeeda, ha noqon dhexdhexaad noqon, waayo waa qayb ka mid a shukrigii. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada lagu furo ducada iyo inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala tuugtid. albaab kastoo xiran oo adag ducada ayaa jajabisa oo furta. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kuugu sahli karo inaad sunnadii nebi maxamed raacdid sala allahu calayhi wasalam. dadka maantay dunida ku nool gaal iyo muslim waxay doonaan ha noqdeen, meeshuu doonaan ha ku noolaado, dad ay ku daydaan ayay sheegsheegaan. ummadahan gaalada iyo taariikhdoodii hore dad sameeyey ayay ku daydaan, laakiin adoo muslimah yaa ku dayanaysaa. haligayga ugu horreeyaad ku dayanaysa waa maxay? waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. noloshuu ku noolaa nolol ka macaan ma jirto, qaabku adduunyada u maamuli jiray qaab loo maamulo ka fiican ma jirto. marka sunnadii nebi maxamed raacitaankeeda waa qayb ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kuugu sahli karo. sidaa horey u tilmaano waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada soo jeeda alla ka cabsiga, gaar ahaan markaad keligaa tahay iyo markii lagula joogo isku sii wayna ilahay uga cabsanaysa. dad waxaa jira keligood markay yihiinna xumaanta iska dhex gala, markay dadka ag joogaanna xishoodo iska dhiga inay ilaahay ka cabsanaya. looma baahna taas. kor iyo hoos waa inaad ilaahay ka cabsatid tabaaraka wa tacaala. waxaa ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kuugu furi karo inaad guursatid. guurku waa qayb ka mid ah waxyaalaha irsaaqada soo jeeda. ilaahayna wuxuu yidhi in yakuunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun caliim. hadday faqiira yihiin ilaahay baa deeqaya, waayo ilaahay waa mid waasic ah oo cilmi badan. nabigeenna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay yidhi 3 qof oo u kaalmaynaya
xaq bayna igu yeesheen oo anaa isku waajib yeelay inaan u kaalmeeyo. ilaahay baa sidaa yidhi. waxaa ka mid a qof guursaday oo guurkaas xaaraamta iskaga ilaalinay. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha irsaaqada ilaahay kugu furi karo inaad u xisaan samaysid dadka ducafada ah ama masaakiinta iyo fuqarada, inaad caawisid oo naxariis yeelatid, waayo markaa naxariisatid baa ilahay adna ku naxariisanaya tabaaraka wa tacaala. jazaakum allahu khayran, aad baad u mahadsantihiin. inahaasi waa qayb ka mid ah waxyaalaha ilaahay irsaaqadu kugu furi karo. insha allahu tacaala aynu ilaalino waxaa akhiradeena iyo adduunkeenna ku badbaadayno. allahuma qinaa cadaabaka yowma tubcatu cibaadak. allahuma arsuqnaa risqan waasican xalaala طayiban kahiira mubaarakan fiih. allahuma طahir arsaaqana min alxaraam. allahuma ajcal lana min kuli طayqin makhraja وmin kuli hamin faraja warsuqna min xayثu laa naxtasib. allahuma arsuqna alqanaacata walxifaada cala الصalaah. allahuma qifna ilى طaacatika wabaacid baynana wabayna macaasik warxam ummata muxamed raxmatan caamatan ya kariim. wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.